marwo nimco cali ama kaag cakaal nimco cali gurey oo kamida qurba joogta u dhalatay gobolka Selel oo toddobaadadii u dambeeyay ku sugnayd gobolka Selel ayaa soo booqatay dhismaha cisbitaalka Ugaas Xasan Xirsi oo magaalada Gaarisa ay ka hirgeliyeen qurba joogta u dhalatay gobolka Selel gaar ahaan ururweynaha Huddoon nimco cali ama kaag cakaal nimco cali gurey oo indhaynta cisbitaalkaasi kadib ka warantay waxyaabihi ay aragtay ayaa waxa ay tiri maalintan banaanka ay imanayay maanta waa laba banka markaan arkay dhagaxa aan dhigaynay waxayna la ahayd anagoo murugoonayna iska dhigaynay dhagax oo dadkan waxba maxaad u qaban doontiin ma islahay maanta waa farxad weyn farxadda maanta albaabka waan ka soo gali karaa waay marka waxaan leeyahay alxamdulillah wax kasta ilaahay baa lagu shukriyaa waxayna ku iska keenay ma ilaahay amarkiisa ku imanay ilaahay ma inoo soo dhirbaaxay walaalaheenana ilaahay baa noo diray markaan waxaan leeyahay dadkeegii qurba joog farxadaas aan farxay sideeda laba laab inaad farxaysiin ma aaminsanahay waa ka walaalahay way faraxsan yihiin meeshii waa loo dhisay dhakhtarkii dhakhtar caadi hayn baan aan oran karaa alxamdulillah 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 wala ilaahay baa mahadda nicelin insha Allah yawmatul qiyaamah ilaahay noo fududeyn jidka siraad إن شاء الله دعاء ذونا وينص عن سوا صدقة الجارية وتؤندمانين وين ولا لا يوحنا قعد سنة يا ما أنت واندميني إن نسرع سنان دونا دير كان ومهم أيضا يعني دير كوح مهم هي أرجع بسوق عليا عروتي با إن إربده قشين كإربده تابا نيسا إن أنا حنون كيني حنون لبعدين أنو كيننا عافمات كورونا كتلنا دير كاسين أن هدنا دبس كورونا قانون دير كأودا من ولا لهنا يعني قعد سنة يا إن شاء الله أول إلهي بقى إن نقرب شوقة إلهي نقرب شوقة إلهي نقص أسطوري عدان تي بي جنا لبلا قلة تي بي جنا وراعين كرنانا بإذن الله وندمين دونا بإذن الله waxaan leenahay way nii joogan walaalaheen way noo fadhiyaan yaan isleena waana nagu faraxsan yihiin mid baan oran lahaa dawladda Soomaaliland waxaan oran lahaa Gaarisa kama tirsano Djibouti anagu qurba joog waa wadankayga waa dhulkayga waa dadkayga mid diidani waan soo qabanaynaa waxaan jeclaan lahaa dawladda Soomaaliland inay hoos u eegto ay degmada Gaarisa iyo dhakhtarkan anagu waxaan u dhisnay Soomaaliland marka ummadeeda Soomaaliland inay hoos u eegto dhibaatada iyo silaca iyo saxariirta ay ku jiraan inay garab joogsado dawladda wasiirka caafimaadka waxaan ka rajaynayaa dhakhtarka asaasnay inuu deerkaba isagu nagaga soo horeeyo oo dawladda hoos ay dhisto waana ku waajib waana ku qasab anagu waxba kala ma harkanayno walaalahay waan garab joognaa hoos u gud reegeerisana waxaan leeyahay mahad Allah ilaahay baan siyaasada noo marti qaadeen ilaahay inay marti waxaan mahad gaara oo qaaliya u diraya wala ay shirkadda Taxan oo hagar baxday marmarka iyo daaqadaha iyo waxa yaala ma sha Allah waxay ku dartay mooyaane waxay ka reebtay ma jirto Taxan waxaan leeyahay shirkadii jirtay joog noqoto Allah ka yaalo Taxan mar walba waanu garab joogsatay Taxan noqota Allah ka dhigo geesta kale qaar kamida waxgaradka magaalada Gaarisa oo ka dhex muuqdo madaxa magaalada Gaarisa mudane Khayre Ducaale Daayane ayaa iyaguna dareenkooda ka waramay halkan waxaan ku soo dhaweynayaa ururkan Huddoon oo maanta halkan noogu yimid si sharaf leh oo mudnaan oo wanaagsan halkan maanta noogu yimid waxa ay noo qabteen maanta de waxa la wada arkayo dhakhtarka maanta sharafta leh fiican ayay noo qabteen walaalayaal anu dhakhtarka fikradeeda ahaan gurmadoon bixiyada gurmadoon yaanu bixiyay waayo waxa weeye beeshu halkan waxa weeye ku farxday dhakhtarka maanta walaalahood kuwa lacagta soo ururiyay iyo kuwa dhisay iyo kuwa kale hawlaha qadara ka qayb qaatay iyaga kuwa mahad baan jeedinayaa waxa weeye dhakhtarkan waa ka quruxdiisa darkaysa alxamdulillah ilaahay baan siiyay waxa ka maqan maanta deelkii iyo kulleey waxa ka maqan qalab badan buu doonayaa oo dareeri iyo waxa mid kale waxaan ku codsanaynaa Huddoon waliba in dhakhtar cadaan loo noo keen waliba kuwii qaliga xitaa dadka
وميل والبجارس أي نقطة سلقة قوي محوها هاي دكتورة عالكن وضفت أقول قالوا أنت لقينا يو هرجيسة بورمي جبوت لقينا وينك قالوا قالوا عن كل عصنا تانا إلى سنة ويلان ولا ما تعينون يعني إلهي بمحله مرة بعد وحال محله بجينا هنا أورك هدول أو لو صوت دقيقة دقيقة كوكا بصوت دقيقة عصبطال كان راح أوي ووضع أنا وحكم غنابه هالدقيقة كا رونهاتي أورك هدول وابتدى كسعتا ما تعطاني تون كرو قام صاروا هاي ليلو صابروا هاي ليما جعيلين كسوق اليوم ما ركتيار وحاي ترين إن ما تساوس سيدنا لول كمان الجوجل معي وعويجي وايو حيابا يترين ضل كده بدنا وكم جهلية ده ما كم قن يقول ما لكن جهلية ده الأورو كالهدول مع ضل كم توصل تريني واللبن وعصبتال كي لو بعنا أو عندك واحد لقيجري أرجيس لو قال كيلو مركز جوجل قرب تدرهم على حد من نفتي كذي بعد سالك ناقت مدرت فوق قاضي ويكجرتو هالك لقى سوق قبلها أيه قاعدة كوسي كويس أم بايو لي جروف لما نايو أيه كوسي كويس ويرار أم على حاجة حاول أصلا دي لوقا هذا مركز عيال قال باش عدد جوكتين لف كسي بحيس كيو ما تاكل لدقاي وإلهي مهدي وإلهي لوقو محمد قوي تلقى لدقاي سلطان وعويجي أنت كدمان أنت وشاقي مثلا قدوميها دقمدو أيرد على داينه وعويجي لا قلها قلك واكن وروح ديسة يا وحاصل لي يسوي الدولة يا هدي الدير الرعي وايو وينو كان الدير الرعي وايو مدة خلا وعن كل ربع هاي إنت قلب كيسي لك هنا ولا ساق قلب يأسن دق ولا ساق قلب وايو باهي الله قبو درتي عصنا هنا أوروك الدول وعن مرة بعد كعصنا هنا سي أي نوع صوت دقيقين عصبتال كان مرة بعد وعن كعصنا هنا إلي وصوحي كلمن هذا لو كانان أو قلب كيسية إيوه دير كيسي أنت أسمع كعصنا كل اللي كعصنا دول كودول مدة كله شركة دي الاستقرارية ولا يلاها مقعدة تكسر أو شركة هذا قيمة بدن أو الاسمه كبروح بدن يا الاسمه يوقي كله أروتي دجاج شركتها runtii deegaanku aad buu ugu bagayo aad baa loola dhacay sida u dhisaysa guryaha iyo qiimaha guryaha ilaa quruxdooda wada kaysan iyo dilaac amale mala masha waxbay ku sii daraan waliba marka shirkadda waxaan doonaynaa iyagana wixii dambe aad ugu soo deeqaysaan ila noogu dhiibtaan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad orta waxa ma hadle on si fiican soo dhaweynaya ururka hudoon ee la jooga maanta iyaga oo wixii ay noo qabteen sharafta u leeyahay dhex jooga maanta noomana kala dhacaan ururka hudoon ee waxa quruxda loo sameeyay iyo kuwa ururka noo dhisay ee waxa ka soo saaran horteed nooma kala dhacaan maadilay baskale waa waxan in badan u haraadnayn galin bar haraad u qabnay maanta si aan ku faraxsanahay oon helay ilaahay baa maanta iskale kuwaana siiyey ee wax noo qabtay ilaahay baa na siiyey noogu deeqay quruxda aan u haraadnayn ilaahay baana mahadle iyagana waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol had iyo jeer waan u mahad celinaynaa wixii hadhay waa dayrkii iyo qalabkii waxa lagu qabanayay baa hadhan intaana insha allah in loogu soo daran jecel oo aad ugu rajo weynahay waxaan ba iyaga noo qabtay daan uma qabsan haraad qofku hadduu haraadku khatar geliyo markuu biyo helo sida uu wala yaqaan dhakhtarkan sidaas aan u haraadnay ilaahay baa mahadda la siiyay iyo kuwa noogu deeqayba marka xiga iyaga iyo wixii la mid ah noo qaban qaabiyay dhakhtarkan weyn ee baahida aan u qabnay wixii ka qayb galayba waan salaamaynaa ta kale waa ka gudoonay deeqda ay noo sameeyeen waa ka gudoonay iyaga iyo dawladda Djibouti ay noo soo maraysa haddii madaxweyne tahay iyo haddii ay in ku xigta ay tahayba boqolkiiba boqol waan hambalyeynayna waana salaamaynaa deeqdaana waa ka gudoonay waxaan codsanaynaa intii kale ee naga maqan in noogu soo dadaalo noogu soo barayo baahi bay aan u qabnay bay naga tireen ilaahay iyagana baahida ka qaado
magaran oo ilaahay waxyaalaha deeqaha ay noo qabtaan iyo danta ayaanba allah uu kordhiya waa ducataay waxa weeye dawladda Jabuuti ay noo soo marayso waa taayadii waa ka guddoonay taa hadday madaxweyne tahay iyo hadday in ku xigta ay tahayba waa ka guddoonay waana ku mahadinaynaa waana garab joognaa waana wax kale kama aanaa haysan waan ka guddoonay waana garab taaganna diyaar waanuna agaasimka ama maamulaha xaruntan caafimaadka ee Gaarisaad waxaan jecelahay marka hore inaan u hambaleeyo soo dhaweyno si weyn ururka guddoon oo dhismahan si ballaaran ugu deeqay oo aad baahi weyn u qabay xaaladda caafimaad ee hadda ka jirta runtii Gaarisa waxa weeye waa xarun oo meel central u ah degmooyinka Saylac iyo Lugaya waana wadbuuda ayaa la oran karaa dhinaca walba ugu ballaaran bulshadu ballaaran ayaa ku nool oo ilaa 15,000 ayaa hadda lagu qiyaasaa dadka ku nool nawaaxidan waqtigani aan joogno hadda wallahi waxa jira waqti adag weeyaan oo ay joogaan dad waliba aan soo qululay dhibaatooyin fara badan waxa ka jira caafimaad darro oo ah dadku xoolaha ay ka dhimanayaan dadkeena ay cudurrada shubanka waliba shoobiyoodka ugu badan yihiin oo culayskiisu nasaaran yahay bishan ugu dambeysay waxaan ku daweynay 6,000 dadka waaweyn oo kalaata 600 iyo 35 qof halka caruurtana 270 ahayd hooyaduna ay ka ahayd 212 oo bishan soo dhaafnay runtii waa culays farabadan iyadoo waliba cisbitaalka la furin ay xaruntii caafimaadka oo kalaata tahay kulay dibadda waxaad ka arkaysiin bacbaad ka arki doontiin xiran waa waarka dadka shoobiyoodka dhigeenay runtii maalmo 12 qof soo dhigay ilaa hadda way yaalaan dad oo imika dad wada u tagi kartaan oo ku booqan kartaan bacda dhexdeeda wararkaasi imika iyo kuwa la dhisay runtii waxaan jecelahay inay ka qabtiraan baahidaas loo qabo caafimaadka inay wax badan ka qabtaan waxa kale oo aad iyo aad soo ku xusaya ambulanska laftiisa oo qurba joogtu ka qayb qaadatay keenitaankiisa oo runtii xubinta xudun dhaxaadka oo hadda habsami socodka caafimaad ee meesha runtii hay'ado kale oo iyaguna ballan qaaday way jiraan inay wax si degdeg ah u dhaqaajiyaan oo project iyaguna u diyaar ah runtii oo iyaguna qaatay in ay ka sameeyaan xarunta caafimaad SC-ga wax la dhahaa ama stabilization center maadaama ay nafaqa darrada hoos ciyaalka hooseyso nafaqa darrada halista ay ku badan tahay xaagan oo shoobiyood ka dhacay waxa ay hay'adaha soo maray UNICEF World Vision hay'adahaas ay arkeen inay si degdeg ah waxaan noqon qaadanay wasaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland in stabilization center ka horta sida ugu dhaqsaha badan loo furo taasina waxaan ku rajaynayaa bishan 15-keedaba in qalabkiisa yaala soo haduu Ilaahay dhaho taasina mid farxad noo ah ciyaalkii SC-ga Mbaboraba ama Djibouti la doonay halka caanaha lagu siinayay ee halka waarka la dhigayay in halkan dhakhtar special uu joogo oo lagu quudiyo oo halkan la dhigo oo halkan wax lagu siiyo runtii haddana la helin meeshan la dhigayo ee loo dhisin de laba keenay bay ka dhigan tahay oo mid aad iyo aad u ah bulshada farxad ururka runtii iyagu laftooda dhismaha construction ka wada yani aqalkan intuu ku dhamaan lahaa waxaan soo oran karaa anigu in badan buu ku dhamaan lahaa muddada qaadan lahaa laakiin sida uu soo koobeen bil uun buu socday culayskiisu aqalka laakiin inta kale oo dhan waa xaalkii iyo qurxinta uun baa socday haddana aqalka saasi loo dhisay runtii waa aqal macal groundkiisa la soo kiciyay haddana laga sii dul bilaabay yani xataa aqalada hore abaar baa lagu cadibay laakiin kan waxaa ku rajo weynaa aqal asal ma doorshaan noqdo insha Allah taala oo bulshada wax ka tira oo noqdo aqal dhaxala waxaana ay soo sheegeen runtii deyrku waa mid muhiim ah qalin baa lagu fulin doonaa waxay xaaladda waar weeyaan oo ciyaal baa lagu qoodin doonaa marka waqti safety-giisa deyrku waa mid aad iyo aad muhiim ah dhakhtarka waxa kale oo hay'adda World Vision laftooda iyagana aan ka ballan qaadkayna inay qaybtii TB-da ku soo daran isbitaal oo garab isaguna ka qayb qaadan doono marka la arkay liskani
runtii markay bulsho wax qabsatay wax lagu soo daro dadka kalena ama caalamku iyaguna way garab joogsanayaan oo de meeshii wax socota waxbay kugu soo daray doonaan insha Allah kulli iyagana waa rajooyinana iyagana ballan qaadaan Maxamed Cawaala Daahir on Cable TV magaalada Gaarisa.